السلام عليكم saaxiibayaal maanta waxa sharaxayna film Korean oo fantasy iyo sci-fi isku jira oo lagu magacaabo City to Rains fadlan like sar muuqaalkan subscribe-na ka dhigo run sheeg si aad ula socoto muuqaaladeena xiga daawasho wacan bilowga filimka waxaan aragnaa ninkan lagu magacaabo Ali wuxuu ka howlgalaa sheebaar kuwani waa saaxiibadiisa ay shaqada wadaagaan waxay diyaarinayaan safar dibadda ay ugu baxayaan wuxuu ka codsanayaa inuu raaco way ku gacan saarayaan waayo hooyadiisa warqad soo dirtay way ka iloobeen inay u sheegaan taasoo ku wargelinaysa in guriga ay ka maqan tahay Alina laga doonayo inuu hawl nadaafada ka soo qabto warqadda waxaa ku qorneed inuu kala saaro qashinka midka qoyan iyo kan qalalan Ali guriga markuu yimid wuxuu ahaa mid aad isku dhaxyaacsan wuxuu bilaabayaa inuu kala meeleeyo qashinka wuxuuna u soo qaadayaa dhanka hoose si uu baardiga qashinka ugu soo rido aqalka markuu dib ugu noqdo talkiisa ayuu fiirinayaa waxaana u taalo fariin codeed ay u soo dirtay Aisha oo ugu sheegaysa in caawa casho ay ku balamisay waqtigeedana uu ku yimaado intaas kadib wuxuu hubiyay digsiga daboolka ka qaaday urxuna ka soo baxaysay kadib tufaax ayuu arkay oo isna doorsoomay markuu is soo diyaariyay kadib hore ayuu u qaaday qashinka intii hartay wuxuuna ku riday baardigan qolada nadaafada timid way qaadeen qashinkii waxayna dib cusboonaysiin kadib ka soo saarayaan boorash looda loogu talagalay loodii way cunaysaa boorashkii waxaana iibsanaya hilib leh kaasoo qalay oo u sii wareejiyay hotel Ali caawa isla hotelkaas ayuu casho ku leeyahay hadda waxay u fadhiyaan casho heer sare ah oo iyaga iskooda ay u dubanayaan hilibka lo'da saaxiibtiisa ayaa sawiranaysa cashada iyadoo markuu weydiiyay sababta ay u sheegayso inay jeceshahay inay sawir ka qaadato dhacdo walba oo nolosheeda ay la kulanta waiter ayaa keenaya beerka lo'da oo ceeriina kani waa hotelkan waxa uu gaarka ku yahay Ali beerkii ceeriinka ahaa ayuu cunayaa dhanxanaga ayaa waxa uga dhigay markuu soo saaray wuxuu arkayaa in qolofta tufaaxa ay tahay isagoo la yaaban waxa beerka soo dhaxgeliyay hadda waxay fadhiyaan goobta nasiinada ee lagu sheekaysto Ali ayaa weydiinaya Aisha waxa ay ku dooratay isaga waxayna u sheegtay inuu yahay qof daacad ah si kadisa wajigiisa oo isbedelayo waxa ku dhacay ay weydiinaysaa iyagoo arintaas la yaaban ayaa labadan wiil foodo ku bilaabayaan waxa ay ku soo tuureen Aisha ayaa ku dhahaysa Ali meesha naga kaxee looma baahan inaan wajahno kuwan Ali dhankooda ayuu aadayaa wayna ku goobanayaan bogay ka tumeen Aishana tal ayay u ceysay oo gargaar dalbanaysay laakiin si lama filaan ah beerkii uu cunay ayaa soo dhacay Alina wuxuu yeeshay awood aan la filaynin labadiiba wuu gaduudiyay Aisha oo la yaaban waxaan sidoo ku sameeyay ayaa sawir ka qaadatay oo ka baxsatay meesha intaa kadib Ali wuxuu wacay saaxiibkiisa oo baar joogo wuxuuna uga dhacayaa arinta iyadoo labada wiil uu soo dilay ay isku bedelayaan zombie waxay ku soo wajahan yihiin lamaanahan halkan ku nasanaya waxayna u sii bedelayaan zombie kale magaalada cudur ayaa ka qarxay iyadoo dadka ay isku soo jeesteen oo isgoosanayaan waxaana soo baxday in qof walba oo maqaayadaas habeenkaas ka cunteeyay uu zombie noqday Aisha baskay saaran tahay waxaana ka soo muuqanaya calaamadaha fayraska Ali saaxiibkiisa u yimid wuxuuna isku dayayaa waxa dhacay inuu u sharaxo laakiin isaga waa ka moogana arintaas markuu ku wareeray oo wax ka fahmi waayay uu soo istaajiyay si ay ciyaarta uga qayb qaataan Aisha ayaa soo waceysay Ali oo wajigeeda isbedelada ku dhacay la yaaban laakiin ma maqleen talka jaabka dambe ayuu ku jiray muusigna wuu daarnaa Ali zawaxanka ayaa dhibay mana ku dareemay nafis halkan wuxuuna gacan dhaafay mid ag jooga iyadoo laba nin ay qabteen banaankan u saareen iyadoo dadka magaalada oo dhan ay iscunayaan ayuu wadada dhex socdaa Ali xaafadda ayuu ku wajahan yahay iyadoo wax xiriirihiis ka dhacay xitaa ogeen oo talkiisa xataa dhulka uga dhacay waxaa la tabinayaa wararka ku saabsan xanuunka iyadoo lagu doodayo siday ku dhacday habeen gudihiisa xanuunkan sidaan u faafo dadkana ku noqdaan zombie iyadoo Ali uu guriga yimid telefishinkana ka daawanayo wax walba iyadoo TV-ga uu sii warinayo dhaqaatiir diyaarinaysa inay cirbado talaah soo saari doonaan wuxuuna bilaabayaa Ali inuu ku tunto guriga wax kastoo yaalay waalidkiisa iyo walaashiisa albaabka soo istaagay oo safarkooda ka yimid markay garaaceen oo in cabaara Alina uu furi waayay iyagoo waxba fahansaneen ayay ku farayaan albaabka furaha koobiga oo haysteen gudaha markay soo galaan qolka oo dhan waa mugdi wax walbana way isku qasan yihiin hooyadiisa waxay ku canaananaysaa Ali inuusan sameynin waxa ay fartay taas bedelkeedana guriga uu ku sii ciyaaray uu wasaqeeyay halkii uu ka nadiifin lahaa Ali ayaa si tartiib ah ugu soo socda xagooda waxay la yaabeen waxa ka qaldan aabihiisa ayuu cunayaa walaashiisa ayuu ku darayaa hooyadiisa way ka baxsanaysaa oo waxay galaysaa qolka dhaqmada albaabka ayay isku xijinaysaa xilli isna banaanka soo aaday markuu jabin waayay kadib hadda dhammaan dadka deegaanka waxay qaadeen xanuunka iyadoo dadka badbaaday ay saaran yihiin dabaqan dawladda ka codsanayaan in laga soo gaaro iyadoo dadka kalena ay waqtigii saxda ahaa ee alaabta dhici lahaayeen u arka hadda dawladdu waxay isku dayaysaa wax walba oo ay awooday laakiin wali xal looma helin arintan hadda waxaan aragnay Ali iyo Aisha oo goobtan iskugu yimid iyagoo zombie noqday kuwaasoo is hortaagan hadda wayna is aqoonsadeen waxayna arkayaan tufaax xaqiisa iskula socdaan Aisha ayaa soo qabatay Ali ayay u dhiibtay
wuxuuna bilaabay inuu cuno xilli Aisha ay sawir ka qaadayso iyadoo dhehaysa maxaan zombie iskugu bedelnay oo qalbiyadeena weli aysan u dhiman. halkan ayuu ku dhammaaday filimka.